doontan baabuurta lagu raraya ee aad arkaysaan waxay taallaa magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Sida aynu ognahay sanadkii hore roobabkii daay waxa dhacay fatahaado aan inaba caadi ahayn kuwa oo khasaare aan ka soo kabsasho lahayn u geystay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo qaasatan degmada Baardheere iyo Buurdhuuba buundooyinkii marayay webiga uu la tagay. dadka deegaanka ayaa waxay ku kala gudbayeen doomaha noocan ee arkaysaan ayay dadku adeegsanayeen si ay ugu kala gooshaan labada dhinac ee webiga maadaama labada magaalaba ay yihiin magaalooyin uu webiga Jubba dhaxmaro. hadda waxay nagu soo kordhay doontan aad arkaysaan waxa suurta galiyay jaaliyadaha qurbaha iyo rag ganacsatayaal ah oo ma garanaysa ay ka shaqeeyay buundooyinkii xaaladooda halkay ku dambeysay ma la dhisay ma la bilaabay waxa la doonayaa in la dhiso mise xaalkooda halka uu marayo ayaan ku sheegayaa. sidoo kale waxaan ku sheegayaa doontan baabuurka lagu rarayo aad arkaysaan iyo waxay tahay iyaduna iyo waxay ka saacidi doonta ama ay u tari doonta dadka deegaanka. doontani waxay taalla ama la keenay degmada Baardheere ee gobolka Gedo. haddaba doontani maxay kaga duwan tahay doomihii hore ee degmada yaalay ee dadku ay ku kala gooshi jireen? doontani waxa ku kala gooshaya oo ay qaadaysaa baabuur iyo rakaabkooda halkii trip ama halkii markaa waxay gudbinaysaa in ka badan 10 baabuur oo yar ah maadaama halkii markii ay qaadayso 10 baabuur iyo wax ka badan taa waxa weeye faa'iido weyn oo soo korodhay dadka deegaanka. buundooyinkii wali lama dhisin oo waayo buundo in la dhiso waxay qaadanaysaa waqti aad u badan waxay u baahan tahay budget weyn. Soomaaliyana kama jirto dawlad ma garanaysa ay qabato arrimaha noocaana. arrinka noocaanahi waa arrin u taala dawlad laakiin wadanka wax dawlad liira kama jiraan nin waliba iska wax u qabsan weeye. jaaliyadaha qurba joogta ganacsatada iyo dadka deegaankuna waxay ku jiraan dadaalo is-abaabul waxaana lagu talagalsan yahay hadduu eebba weyne qadaro in la dhiso 2 buundo oo cajaa'ib ah 2 buundo oo kuwii hore ka wanaagsan insha Allah ta'ala sida la rajaynayo. waayo sida ogtiin gobolkani waa gobolka ugu buundooyinka badan Soomaaliya waayo gobolka inta badan degmooyinka gobolka waxa mara webiga Jubba. haatan dhaawacani arrinka yimid ma ahan hal degmo iyo hal buundo waa 2 degmo iyo 2 buundo. marka waxa weeye in miisaaniyad loo helo in la dhiso waxay qaadanaysaa waqti dadaalkeedana waa lagu jiraa hadduu eebba weyne qadaro. laakiin doontani haatan wax badan ayay ka saacidi doontaa wax badan ayay u tari doontaa baahiyo badan ayay ka dabooli doontaa dadka deegaanka. aad ayaan ugu faraxsanahay. sidoo kale waxaan rajaynaynaa hadduu eebba weyne qadaro midaan mid la mid ah in la geeyo degmada Buurdhuuba oo ayadu qudheeda u baahan oo baahi weyn u qabto waayo buundooyinku waa dekada iyo isha uu gobolka leeyahay gaar ahaan degmada Baardheere waxay isku xirtaa gobollo dhan oo Soomaaliya sida gobolka Baay gobolka Gedo Jubbada Hoose Jubbada Dhexe waxa dhan ayay isku xirtaa buundada. marka waxa weeye waa buundo dekada waa il waa lagama maarmaan dadka deegaankana waxay u qabaan baahi aad u weyn. arrinkan ay soo kordhiyeen ganacsatada iyo jaaliyadaha qurba joogta ee dadaalka badan sameeyayna waynu kaga mahad celinaynaa oo waxaynu leenahay aad baa u mahadsantihiin dadaalkiini iyo waxqabadkiini qayb kamid ah waynu aragnay. hadduu eebba weyne qadarana waxaan rajaynaynaa mar dhow in aad aragtaan oo halkan aynu ka soo gudbino buundooyin aad u qurux badan buundooyin cajaa'ib ah oo laga dhisay degmada Baardheere iyo sidoo kale degmada Buurdhuuba.